madaxweynaha dowladda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu kulan gaar ah kula qaatay gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee wadaniga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxaana kulankan ay labadan dhinac kaga wada hadleen arrimo muhiim oo ay ka mid yihiin sidii meel looga soo wada jeesan lahaa mucaarad iyo muxaafidba adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada qaranka Soomaaliland sidoo kalena waxay labadan dhinac ay kaga wada hadleen intii uu kulankooda socday abaarahan kasoo cusboonaaday qaar ka mid ah gobolada dalka isla markaana saameynta xooggan ku yeeshay dadka ku dhaqan deegaanadaasi Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo Injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID intii kulankooda uu qasriga madaxtooyada ku socday waxay sidoo kale ka wada hadleen isla markaana ay diiradda ku saareen arrimaha doorashooyinka ee fooda nagu soo hayay qabsoomidoodu isla markaana loo qoondeeyay inay dalka ka dhacaan 2019 iyo 2020 oo kala ah doorashooyinka golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo golaha deegaanka Soomaaliland oo iyagu isbarkan iyo waliba golaha guurtida Soomaaliland kulankan maanta dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha labadan xisbi mucaarad ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawiga safgarad iyagoo isku afkartay in meel looga soo wada jeesto mucaarad iyo muxaafidba wixii danta qaranka khuseeya Cabdi Fataax Xasan Xuseen Xareed Kalson TV Hargeysa.